السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتو إذن سلام دمانتين ساودنتين meel kastaad kala joogtaan dunida daafaheeda. dabcan waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtaan alxamdulillaah, anigana waan caafimaad qabaa alxamdulillaah. isku soo laabasho wanaagsan asxaabta. waxaan leeyahay channelka waa channelkiina. haddii aad igu cusub tahay isku day inaad subscribe garayso muuqaalkan, like, share, comment aad siiso si uu u gaaro asxaabtaada ama yacni dad kale ama meel kale u gaaro. insha Allah isku day inaad share garayso lana wadaagto friendskaaga, familkaaga. insha Allah waan ka rajeynayaa intaas iyo in ka badanba. waxaan rabaa sheekadii guurkii dhexmaray jinka iyo insiga inaan caawa soo gabagabeeyo. dabcan part 9 ayay inoo mareysay, hadda waa part 10. insha Allah caawa ayaan rabaa inaan soo xiro guntii gabaabadii aan soo gabagabeeyo. xasan olol waxay inoo mareysay xasan olol oo la yacni gabadhiisii oo 9 jirka ahayd lasoo doontay ee Aamina Cusmaan ee Aamina Suldaan ee u imaatay Suldaan ee u imaatay islaantii jinka ahayd uu qabay oo gabadhiisii lagu yiri olol xasan ololow gabadhaadii 9 jirka ahayd ayaa lasoo doontay, asigana uu yaaban yahay. sheekada sidii tan ayay ku dhacaysaa. fadlan haddii aad rabto inaad la socoto ama aad rabto sheekadan kunteedii gaabanteeda inaad ka gungaarto, fadlan channelka dib ugu laabo, soo fiiri. 1 ilaa part 10 way ku jirtaa. part 1 ilaa part 10 oo hadda aan soo gudbinayo part 10 insha Allah way ku wada jiraan. lana wadaag asxaabtaada si uu u gaaro muuqaalkayga meel kasta insha Allah. kusoo dhawaada. sidii tan ayay ku bilaabanaysaa sheekadeena ama sheekadii ama qisadii dhexmartay guurka iyo jinka. qisadan waa qiso dhab ah oo xaqiiqiyan ah insha Allah. wax yar dhagihiina iyo amaahiya lana wadaaga asxaabtiina insha Allah. kusoo dhawaada mar kale iyo mar kale. sidii tan ayay ku bilaabanaysaa. xasan olol markii ay afadiisii jinka ahayd Aamina Suldaan ugu timid wadanka Cadan ama magaalada Cadan, ay u sheegtay in guur loo soo gudbiyay ama lasoo doontay gabadhiisii uu dhalay oo 9 jirka ahayd. waxa uu sheegay in uu fajac iyo ama gaag u soo baxay, kadibna yaabkii uu yaabay markii uu ama gaagay oo uu ka naxay 9 jir sidee loo soo doon karaa camal. markii uu yaabay ama uu argagaxay warka loo sheegay ayuu si lama filaan ah u yiri bismillaahir rahmaanir rahiim. wuu naxay, bisinka ayuu qabsaday. laakiin markii uu bisinkii qabsaday wuxuu ilooway dardaarankii uu siiyay sodogiisii Suldaan Aar. sidaa darteed xasan markii uu bisinka qabsaday ayuu Aamina Suldaan iyo nuurkeedii ama arageedii waayay. wuxuuna xasan olol magaalada Cadan ku sugnaa muddo 6 sanadood ah. kadibna xasan olol Cadan waa uu ka soo laabtay oo dalkii ayuu yimid iyada oo aanay isaga iyo Aamina Suldaan wax xiriir ah aanan yeelanin. wuxuuna markaa yimid magaalada Hargeysa iyadoo uu xilligaasi ahaa sanadihii dhowr iyo tobnaadkii. laakiin xasan olol isaga oo ka hadlaya imtixaankiisii Hargeysa ama imaatinkiisii Hargeysa wuxuu yiri waxaan Cadan iskaga soo balwadeeyaba waxaan imid Hargeysa. dabadeedna markii aan in muddo ah aan joogay ayuu leeyahay magaalada Hargeysa ayaa maalin maalmaha ka mid ah aniga oo bahal busaarad ah la ildaran oo meel kaabad ah ku fadhiya ama meel yar oo darajin ah fadhiya, waxaa isoo hormaray gaari yar oo ay Aamina Suldaan saaran tahay. kadibna markii aan arkay ayaan indhahaygii la raacay. dabadeedna markii uu gaarigii marayay meel agteedii ah ayay Aamina Suldaan ii soo tuurtay masar xariir ah oo ay ku soo riday ama ku soo xirtay lacag aad u tiro badan. kadibna markii ay lacagtii ii soo tuurtay ayay i dhaaftay iyada oo aanan ila hadlin. muddadaasi ka dambeeyana ma aanan arkin ayuu leeyahay. muddadaa ka dambeeyana ma aanan arkin wax xiriir ahna nama dhaxmarin aniga iyo afadeydii Aamina Suldaan. xasan olol wuxuu leeyahay xasan olol waxaan u sheegay in Aamina Suldaan wuxuu sheegay ama wuxuu oranayaa markaas xasan ayaa sheekada wato. Aamina Suldaan xasan olol waxa uu sheegay in Aamina Suldaan ay u dhashay 14 caruur ah. laakiin waxa uu sheegay in Aamina Suldaan la soo xiriirin
يعني la soo xiriirin lahayd haddii ay nooshahay sidaa darteed uu u malaysan yahay inay aamina yacni noolayn oo ay dhimatay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray oo uu yiri aamina suldaan haddii ay caruurteydii u sheegi lahayd inaan anigu ahay aabahood way ila soo xiriiri lahaayeen laakiin nasiib darro wayna u sheegin ama uma aysan sheegin in aan ahay aabahooda. xasan olol oo yacni wuxuu leeyahay markii gabadhii ay ka tagtay aamina suldaan oo yacni keligiisa uu noqday iyo ilmihiisa uu la-yahay ayaa waxaa u imaadeen niman reer Somaliland ah. sheeko kaftan ayaa dhex martay xasan olol oo yacni wuxuu leeyahay xasan olol waxaa kale uu ku kaftamay in niman reer Somaliland ah sheegtay in ay ayagu aamina suldaan dhaleen ama iyagu ay ka tirsan tahay sidaa darteed ay yaradii iyo xoolaba ka doonayaan maadaama bay yiraahdeen in aad sheegtay iyada oo gabadhaasi qaawan oo aad ku aragtay badda dhexdeeda iyadoo ku dabaalanaysa. wuxuuse xasan olol taasi kaga jawaabay inuu ogol yahay wax kasta ay iiga rabaan yarad iyo wax kasta ay ahaataba iyo xaal marin, laakiinse waxa uu raaciyay waxaan idinkaga fadhiyaa uu leeyahay ama waxaan idinka rabaa xaaskaygii iyo 14 caruur. hase yeeshee xasan olol waxa uu guursaday gabar kale oo insi ah. yacni hadalkaas markuu leeyahay waa hadal iska kaftan ama hadal yacni markaas uu ka rabo yacni rag Somaliland ayaa waxay leeyihiin gabadhaas anaga yacni dhalnay camal ama gabadhaas anaga tahay waxaan u baahanahay sooriyo ama waxaan u baahanahay yacni qarash. wuxuu dhahay diyaar ayaan u ahay wax walba waan idin ogolahay oo waa idin siinaya laakiin hal shuruud ayay ku xiran tahay waa inaad ii keentaan waayo tii uu fisinka u qabsaday oo xasan olol ee xaaskiisa caruurtiisa sida uu ku waayay sidaa darteed wuxuu leeyahay waa idin siinaya wax kasta laakiin hal shardi waa inaad ii keentaan xaaskaygii iyo 14 caruur ee ii dhashay markaas wax kasta waan idin siinaya. laakiin sheekada waxay ahayd kaftan ayay ahayd oo rag Somaliland yacni meesha iskugu imaaday reer Somaliland ah ayaa ku kaftamayay. dabadeed wuxuu guursaday ama kadib waxa uu guursaday gabar insi ah oo family u noqotay oo yacni oo la degan yahay hadda. marka sheekada asxaabay caawa way soo dhamaatay meeshas ayay inoogu eg tahay. waxay yacni markaas inaad kasii gaarta aad rabto part 1 ilaa part 10 way ku jirtaa qisada. insha Allah sheeko kale ayaa inoo bilaaban doonto oo maxaa la dhahayay yacni waxaan jeclahay inaan u gudbo dhanka iyo maxaa la dhahayay jacaylka aan rabo hadda soo idinkama nixin xoog hoojini iyo soo idinkama sheekeen waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo sheeko kale oo la magac baxday calafkii yacni calaf iyo jacayl la magac baxday. insha Allah goordhow ay idinku soo wajahan tahay iskuna day inaad subscribe saartaan gambaleelka on ka dhigataan si uu idin soo gaaro muuqaal kasta oo aan soo share gareeyo lana wadaag asxaabtaada faniskaaga familkaaga. insha Allah waxaan halkan yacni aan idinka salaamaya dhammaantiin meel kasta aad kala joogtaan dunida daafaheeda. insha Allah waxaan rajeynayaa kulligina iyo caafimaad qabtaan alxamdulillaah. asxaabta dee waxba idin lama sheegi kare maanta idin leh isku day hadda inaad channelka iska saartaan subscribe-ta lacag ma ahan like-ta iska saara wuxuu idil waa walaalayaal hadda isku xishooda intaana waa kaftan. insha Allah tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagayaa waa billahi tawfiiq is arag dambe oo xiiso leh insha Allah.